weynta waa subax hore intaan dukaamadii iyo carrada aan la furinin marka runtii hadda ima suurta gelin inaan magaalada kor idinkaga sawiro oo aan si fiican idiin tuso balse waxaad ka dareemi kartaan halkan qaabka ay tahay magaalada iyo sida ay tahay marka waa arrin aad haddii aan dhirta badan meel kasta geed iyo waxa ku yaalla arrin marka aad iyo aad dadka waa 19kii bishii August 2010 waxaan joogaa xaafad ka mid ah magaalada Camaara runtii Camaara saardirna geedihii liinta oo ka baxaya meeshan sida aad arki kartaan meelahan aan ku qabto mirihii ayaad ka goro Okay, fasalkan waa fasalka toddobaad iskuulkan maadooyinka Ingiriiska ayaan anaga dhigaa iyo Soomaaliga wax la mid ah halkan cashar Ingiriis ayaa ku qoran questions exercise waa su'aalo casharka aan siiyay xaqiiqatan iskuulkani ama fasalkani xagga Ingiriiska aad ayuu ugu dhisan yahay My name is Misk. Okay, how old are you? I'm 14 years old. Where do you live? I live in Camaara. Right, okay. What's your class? What's your grade? waxaad arkaysaan haddana soo bixitaanka gabdhaha oo u dambeeya si sharaf leh ayay u soo baxayaan labada dugsiga dhexe iyo dugsiga hooseba goobta haday ahaayeen cilmooyinka madaxda deegaanka maamulka xubnaha ganacsatada guddiga iskuulka macallimiinta hooyooyinka ururada bulshada dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada intaa kadib waxaan gelaynaa barnaamijkii aan isugu nimid oo ahaa dhammaan aan isugu nimid oo ahaa horumarinta waxbarashada barnaamijka intaan gudbin kahor waxaan ku bilaabaynaa على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأيضا تهي هؤلاء يوم وصدر المقدس المدور ويجي وداروا وهي حرنا صمر كورن ما يوم حكورن حسن شعري ومضى على كورن تنمك يسوع كان نور بيجي جرا كورن مركب وحنقول هاي إن الماشي بعطاء هو أبنه المهي هو بديه قريه حدير لبسي أو إنه نصور أو ilmihi waxay uga kala hareen oo wax yar mooyaan intii kale ay magaalada gadaal ugu noqotay guryahoodii haddii transportka ayaan bixi karin marka waxaan codsi ku nahay hay-adda qaabishan inay naga caawinto xagga dhaqaalaha oo ilmaha iskuulka la soo dhoobo agoon bay leeyihiin ilmuhu dad badan yarahay leeyihiin waxaan waxba dhiga karin u badan yihiin marka intaasiba waxay u baahan yihiin horumarin ay u baahan tahay iyo israelnimo iyo walaaltinimo waxaan doonaynaa codsi ku dhowan hay-adda ka codsaynaa wax dhigayda ama sardhisayda in lala caawiyo oo carruurtaas lagu dadaalo waxbarashadooda iyo tarbiyadooda iyo talagalkooda in lagu dadaalo aan ka codsaynaa hay-adda ku shaqada leh oo guryaha ama dhisayda ama iskuulaadka dhigayda ama tamsiilaadka dhiibayda codsigayagu waa intaas waxaan idiin sheegaynaa ilmaha markii loo dhigo 4 inaan meesha imaan waxaana ka reebay waa danyaro iyo dandarro ayda dadka intaas aan kusoo koobaya waxba kasii dheerdheeran maayo waxaa lidhi baryo waa gabunno dhulka ilaa uu ku dhaco lama soo qaban karo marka annaga waxayagu waa codsi walaal waa codsi hay-adeed waa codsi islaam waa codsigayaasi waa kaas waxayagu waxay yihiin waa kala laalaadaan ilmahayagu iskuulkay rabaan mana dhiga karaan hay-adaha nan socda
meel walba wax laga dhisaya meel walba laga binaynaya meel walba ilmaha iskuulka loo dadaalaya bulshada waxaa la rabaa inay soo korto yaryarka oo jiilka soo koraya in la koriyaa la rabaa marka anagu intaasaan codsi aan u nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midaan labadaas macalin waxa weeye waa iska garan kartaa 5 fasal iyo 3 macalin meesha marka baahi macalimiin ayaa ka jirta oo hadda waxa weeyaan cala aqal ugu yaraan 2 macalin oo kale in la soo kordhiyo ayaa aad muhiim u ahaa lahayd waxaana noo diiday xagga duruufta iyo dhaqaalaha oo dhaqaalaha iskuulku ku tiirsan yahay dadka deegaanka oo dad iska tabaaraysan colaad iyo dhibaato iyo abaar wax ku jira ah marka waxa weeye dadka marka ka jira iskuulku wuxuu yahay macalimiin yaro ayaa ka jirta iyo maaragtay waxa weeye dhaqaalihii iyo walwal ka jiro oo hadda haddii sidaan deegaanku sii ahaado oo gacansiin aanan helin ay dhici karto in la waayo qaladkii bixi jiray kabacdina ay sababto in macalimiintu sii shaqayn waayaan marka sidaa waxaan codsanaynaa oo maaragtay aan ka codsanaynaa walaalaha in maaragtay kuwii joogana la qaabilo oo macalimiin ah kuwa dambena maaragtay insha allahu taala loo soo kordhiyo manhajka xataa waxa weeye bawaaq badan oo fara badan ayaa loo baahan yahay oo manhajka ku saabsan marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa insha allah in wax nalala qabto waxqabadkeennuna waa intaa hadda anagu wixii aan hadda aan hayno 5 fasal oo 3 macalin oo maamul yahay ay ka shaqeeyaan ay ka howlgalaan oo 2 fasalba isku daran yihiin ilaa 1 fasal maahan dhibka ayaa taagan marka insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweynayaa halkan uga baxaya walaalaha kale oo maaragtay ka dambeeya insha allah assalaamu calaykum duqa magaalada degmada camaara haddana waxaan sii gudgalaynaa qaybo kale ee barnaamijka haddana waxaan ku wareejinayaa kelimada siinaya axmed caalin oo ka mid ah guddiga iskuulka بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتين إنتنا ماشي صوتنا أنا وحن كهرباء ما دام أوجدك كمل هاي دجن ماشى وعروس كان سلوا البنت وحن كهرباء باهرين وحن صار ورني دوسيا وان كان بقولي كنتم على عروس أيضا أقل من ولي باهرين وأي باهرين وتعرفون إن عروس جوتا كبريين عن بقولي كنت صار ورني بقولي كنتم خاص ما علمتي هراء وإحنا والد كلا قال شيء وإحنا وحلا قال شيء تأكلين عن كهرنا هذه مركي ورئيس من التعبير ومركي أي دحين وهذه نرجعيين ووالدين كي يسوس هراء waxaa meeshii ay noqotay boqol wax ka hooseeya inay ku harto ardada kuwii magaalada joogay reerkii 10 carruur lahaa 2 xabaa laga soo waday markii hore kii 5 lahaana 1 xabaa laga soo waday ayadoo loo soo waday inaan waalidku uu sameeyay karin oo dadka meesha jooga maalbaleen u sanahay oo dad iska tabaryar u yahay oo intii joogta boqol kontonkaasi baa u go'day hadda tabaryaro iyo baahi aan hadda waxaan codsi aan u nahay in la ka taageero nala qaabilo dhibaatadaas naga haysata xagga dhaqaalaha oo ardadeedii aan keensanay ay la dhimeen kuwii kalena aan la keeni weynay in nala ka taageero aan waxaan codsi baarak kale walaalayaal ilaahay baa mahadi u sugnaatay gaar ahaan mujtamaca meeshan isugu yimid ka kooban culimaadudiinka aqoon-yahanada ganacsatada odayaasha ururka hooyooyinka waxaan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka bacdi waxba ma harin waxaan ku hadli lahaa waxaan ku hadlay dadkii iga horreeyey ayaa ku hadlay wax yar baan marka ka nusayaa intaasoo noqdaan ka soo qaadanaya anoo ku hadlaya magaca guddiga waalidiinta degmada camaara baahideena nahaysa waxa weeye waxbarasho la-aanta xaggeeda ayay ka jirtaa waxaan doonaynaa in laga saacido waxbarashada xagga iskuulka
haddii aan ka soo qaato anaga horta dagaalo iyo dhibaato ayaana aanfeeyey degmadan awalba iyadoo dhaqaalaheedu aada hooseeyey ayaa waxaana wiiqay colaad walaal marka waxaan leeyahay arrintaas horta ciddii wax ka qaban karta ama naga taageeri karta inay naga saacidaan haddii aan ka soo qaado aniga hadda guddiga waalidiintan ka mid ahay 5 ciyaal ayaa kaalinta waxbarashada geli karta hal xabo oo ka mid ahaa iskuulkan ka dhigta waxa ii diiday waa duruuf ma ahan waxbarashada inaanan baahi u qabin sida awgeed waxaan doonaynaa in laga saacido xagga iskuulka xagga macallimiinta xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka wax allaale wixii laga awoodo inaan waxbana lagala hayo marka insha Allah taala maqsadku waa intaa marka intaasaan ku khulaasaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh